munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay maalinta mujaahidiinta SNM isla markaasna ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta gobolka Togdheer kan degmada ayaa waxa maanta lagu qabtay xarunta jimciyadda Sooyaal ee magaalada Burco. Munaasabada ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Yaasiin Maxamed Cabdi isagoo tilmaamay in rag badan oo isku sheegay mujaahidiin haatan ay barigaas ay xaska dabada geliyeen isla markaasna ay dumarkii iyo ciyaalka la qaxi jireen waxaana isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii kamid ah. waxaan ka soo gabagabeynaya mujaahidiin dalka idinka ilaashanaya idinka la idinka baqaya idinka la idinku ilaashanaya hamoodina cid kale laga baqayo inamada soo baxay ee maanta waxaanu nahay jabhado waynu isognahay maalintii waynu sayn waa ku ilaa dagaalku waa xaraan waa ku ilaa halkan ku waa xaraan kuwii maanta qoriyo soo gurtay oo doonaya dalka ka shaqeeyaan waa kuwii maalinta cararayay waa kuwii qaxayay anigu hawlo badan baan ka soo qabtay xeel badan runtii iminka waxba ka sheegmaya halkan SNM ilaa golaheedii dhexe guddiga fulinta iyo maamulada ka jira waan ka soo qabtay waxaan garanayaa rag maanta loo taaglayo ilaa xamar ka soo hogaaminaya dagaalada oo maalinta cararayay markay arkeen cadowga soo socda wallahi dumarka way ka horeynayeen iyo carruurta maantada markay ka baqaan cadowga wallahi waan dhaartay waa ka horeynayeen oo aanu qaban kari weynay oo ay joogi waayeen dagaal ay galaan daa iyaga wasi yaacaya maantana waa kuwa laga fadhiilayay waa kuwa laga dagilayay waa kuwa nabadda ku ciyaaraya hebel iyo hebel baan u sheegi doonaa waqtiga gaadho waan rag waaweyn taqaanin waan ismara doonaa culimadu ma xuma culimadu diinku ma xuma diintu ma xuma waa diinteenu waa tii islaamiga aynu ku dhaqmaynay weeye dhanka kalena qaar kamid ah dhalinyaradii qaybta libaax ka qaaday dagaalkii hubaysnaa ee SNM ay la gashay kaligii taliye Maxamed Siyaad Barre ayaa waxa maanta hadaladoodii kamid ah markii la soo galay ma xasuusan mujaahidiintii la socotay ma xasuusan waxaan xasuustay waxyeelada wixii nagu hayay ee dhibaatada laaban xasuustay marka waxaan idhi waa alxamdulillah mar haddii kuwaas la gubay maanta oo ay fadhiyaan waxay ahayd maalin aad iyo aad u cajaa'ib leh maalin dadweynuhu aad iyo aad u si qalbigiisii kii sii jeeday baa soo jeestay intaynaan hawshaa kala gelin aan u akhrino faatixadii mujaahidiinta dhimatay halkan la isugu yimiyay shahaadadii SNM aynu qof iyo hal horta faatixa u akhrino ilaahu naxariisana ka waraabi ilaahu dadku uu ilaahu naxariisana ka waraabi horta maalinta in badan baa laga sheekeeyay oo taariikhda laga soo sheekeeyay muddo badan baa ka dambeysay goob joogna anigu waan ahaa maanta maalinta markaad ugu aan qiyaaso waxaan isdhaahdaa TV-ga la dawada wax filin kartoon lagu aynu ku isticmaalaa sameeyay dawada filin kartoon suurtagalba ma horta wax dhici karo suurtagal maalinta wixii anagana soo maray ma yahay oo kala doogno wax war mala wax aqli galaba ma yahay sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Axmed Cabdi Faray oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa ururgutadii la oranayay koowaad baan kamid ahaa Axmed ayaale iyo waan isku gurubahay inkastoo deegaanka siiriyeen waxaan leeyahay qaar kamid ah hooyooyinka waqtigaasi joogay isla markaasna goobjooga ka ah xasuuqii ay dawladii Maxamed Siyaad Barre dalka ka geysatay ayaa waxay maanta markii la soo hadal qaaday arrimahaas oo dhan ay ilmo ka muujiyeen waa kuwan qaar kamid ah hooyooyinka oo dareenkooda cabiray iyada wax qabata iyada cadowga kicisa iyada siday tahay wax u qabata iyada col kasta oo yimaada ka haysa haddana Burco dawladii timaadaba luquntaas ay iskaga taagtaa waxaanu leenahay madaxweynihii hore uu nayasay kamaanta qabsaday waxaanu leenahay waaba aabahayo waa kiina watay markii hore ee 6 sanadood dibadda nagu hayay maantana waxaanu leenahay haddii isagii madax noqday waxa naga dhiman waa inuu noo dhameeyo waa inuu noo qabto ardaydii ay ka tageen nimankii mujaahidiinta meeshay ku nool yihiin in laga warhayo weeyaan waa naga taariibeen Uganda ku sahal jaamac shabakada wararka ee Iftiin News Burco Somaliland.